بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا غري غلوبو نتورك maanta waxaan idiin haynaa warbixin ku saabsan kalfadhigii ay yeesheen golaha baarlamaanka ismaamulka Soomaalida ama kililka shanaad ee Soomaalida runtii kalfadhigaasi runtii maanta waxa ka soo baxay isla xisaabtan ama su'aalo aad u fara badan oo maaragtay la xisaabtamayo ama la weydiinayo qiibtiga maamulka ama executive branchiga runtii arrinkan waa arrin annaga nagu cusub oo ididiiladeedi leh oo runtii ku deeshanay leh waxaan intii hadda baarlamaankan uu jiray baarlamaankan ka horeeyay weligeey annagu maanu arag in la xisaabtamo dawlad laakiinse waxaan ammaantaasi leh ama mudan in la ammaano speakerka gabadha speakerada iyo ku-xigeenkeedii waayo waxaan wax dhici jiray maahan xildhibaanada sharafta leh aad bay u mudan yihiin in la ammaano waayo su'aalahoodii markay soo dhigayaan si ilbaxnimo leh oo sharafi ku jirto ayaa dadka u su'aalayaan dadkii kalena sida la mid ayaa u jawaabay runtii arrinkan arrin aad u fiican tan xigta waxaan mahad ballaaran u celinaya anoo dhammaantood u celinayo laakiin khaasatan waxa mahad gooni ah u celinaya xildhibaanka laga soo doortay magaalada Mooyaale gobolka Daawa xildhibaankaasi magaciisa Ali Daalac Ali wuxuu soo dhigay su'aal annagoo dhan nagu jirtay dadka ku nool gobolka Daawa qaasatan magaalada Mooyaale ay maaragtay ay maskaxdooda ka guuxiso ee aan la aqoonin cidii la weydiin lahaa laakiin si maanta uu soo dhigay una weydiiyay isagoo uu madaxweynuhu fadhiyo su'aashaasi si directly u weydiiyay madaxweynaha xildhibaan Ali waxaan ku leenahay arrinka aad maanta sameysay arrin aad u fiican oo leh in lagu daydo oo la isku dhiirigeliyo runtii ammaan ayaad naga mudan tahay aad baad u mahadsan tahay tan xigta xildhibaanka waxyaabo uu maanta u weydiiyay madaxweynaha codkiisii sidaana soo socoto dhageysi wacan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wabillahi tawfiiq magaciigana waa baganaale magacaygu waa Cali Daalac xildhibaan ka soo jeeda degmada Mooyaale run ahaantii madaxweynuhu aad buu ugu mahadsan yahay warbixin faahfaahsan oo waliba aad loo soo koobay oo loo fahmi karayo soo jeediyay ka xildhibaan ahaanna waan bogaadinayaa gaar ahaan arrimaha nabadgelyada waxyaabaha laga qabtay gaar ahaan ururka argagixisada ee ku soo gardarooday deegaankeena jawaabaha laga bixiyay ciidankeena gaarka iyo bulshada iyo xukuumadda iyadoo la iska kaashanayo taana ka xildhibaan ahaan inaan xoojino annagana waajibkeena saaran inaanu ka soo baxno ayaan soo jeedin lahaa mustaqbalka haddaan intaa kaga gudbo intaanan kaga gudbin dhinaca dakhliga iyo dhinaca abaaraha jawaabaha kulley warbixinta ku caday qaabka jawaab celinta looga sameeyay run ahaantiina iyadana waa wax la bogaadiyo intaa haddaan kaga gudbo dhowr qodob ayaan macnaha commenti ka dhiiban lahaa kolley gobolka Daawa gaar ahaan degmada Mooyaale madaxweyne maalmahan ama bilahan xaalado bulshadu ay aad uga soo cabanayaan tabasha oo tiro badan ayaa jirta xaaladahaasi oo ku aadan xagga jibriga keelayaasha ku yaala aagaasi dhinaca macnaha federal police ama jibrigu gacanta ku hayaan bulshadu waxay aad uga tabanayaan in wixii gawaari lensiska deegaanka wata waqti laga dilo keelayaasha lagu xanibo dhibaatooyin badan oo noocaas ayaa jira kaga sii daran hadda waxaa soo kordhay magaalada Mooyaale in culeysyo badan ay jiraan culeysadaasi oo ay ka mid yihiin in habeenkii guryaha loo soo dhaco guryo la jibiyo iyadoo macnaha contraband la leeyahay sidaad ogtihiin dhalinyarada inta ugu badan ee gobolka ka soo jeeda waxay ku ganacsadaan ama shaqaabuur ay ka haystaan dhinaca mootooyinka ayay ku shaqaystaan run ahaantiina maalmahan waxaa soo kordhay in mootooyinkii la qabanayo intaasoo kun oo dhalinyaro ah mootooyinkii ay reerahoodii ay ku biilayeen haddii laga wada xareeyo taana caqabado badan bay keenaysaa hataa 3 maalmood ka hor isku dhacyo xagga ciidanka federaalka iyo shacabkii ayaa jiray oo buuq badan baa magaalada ka dhashay
taana kontrabaanka in lala dagaalamo lama diidana in kontrabaan macnaha lala dagaalamo waa wax annagoo dhan baan u taaganahay laakiin in nidaam ka baxsan ama qayrul caadiya in habeenkii guryo lagu soo dhaco guryo la weeraro la jibiyo bulshadu macnaha kacdoon lagu abuuro wixii macnaha mootooyin ee dhalinyarada intaasoo kun oo dhalinyaraha shaqo abuur ay u haysteen ay macnaha dadka ay ku qaadayaan ay ka ganacsan jireen wixii oo dhan hal mar haddii waan xaraynaynaa haddii la dhaho waa caqabado macnaha maaragtay ka taagan bulshaduna aad uga tabanayso taana mustaqbalkeedee dhalinyaro intaa la eg haddii macnaha shaqo abuurkii iyo halkii ay biilka ka heli lahaayeen haddii laga hor istaago inay shacabka dowladda ay kusoo jeestaan unbay noqonaysaa taa marka si looga hortago ka xukuumad ahaan arrintan bal in iyadoo hay-adaha ay qusayso laga wada hadlayo in qaabkii macnaha xal looga heli lahaa waa xaalad taagan weeyaan maalin walba rabshado xabadaha dhacaya xaafadaha dhexdeedii baa xabada lagu ridayaa caruurta dhexdeedii marka dhibaatadan qaabka wax loogu qaban lahaa waan soo jeedin lahaa ta kale kolley arrinta buundada waa laga hadlay hase yeeshee kolley dhibaato ayaa jirta isbeddelku markuu dhacay xukuumaddu waxyaabo badan iyadoo madaxweynuhu dhig ka sameeyey waxyaabo badan baa macnaha horumar aan hore jirin baa gobolka laga bilaabay baa ahayd sida wadooyinka buundadii oo la ballan qaaday baa ka mid ahaa wadooyinka gaaluun ilaa iyo ley waa la xaadhay xaadhitaankaasi la xaadhay bulshada aagga degan aad bay ugu farxeen run ahaantiina laakiin madaxweyne waa arrin soo jiitantay kolley waa la wada ogyahay aad bay u jiitantay bulshaduna mar walba meesha la tago su'aal taagan oo mar walba lagu weydiinayo ama qof mas'uula ama xildhibaan ahaan haddaan tagno su'aal taagan bay nagu noqotay arrintaasi kolley wadadu hadda qorshaha way ku jirtay waan arkayaa waa la bilaabayaa hase yeeshee buundada taana in la dardargeliyo qorshaha xukuumaddana kuma jirto sida lasoo dhigana hay-adiyo arrintaasi bal qaabka macnaha loo dedejin lahaa hadda maamulka gobolka ka imaanaya dadka caadiga mooyaale marka laga soo baxo waxaa laga soo wareegaa wadada arbamiji baa lasoo maraa wadooyinkaasina ururka shane ee argagixisada dhibaatooyin badan bay macnaha ay ka hayaan mooyaale marka laga soo baxo waa la isbaarayaa adigoo dhanba waxaad dhahaysaa wax calaamad dowladeed oo dhan baa meel la iska dhigaya xaggaasaa la dhigi mustawaqad dowladeed ma soo qaadan kartid wax calaamad dowladda ku saabsan oo dhan baa la iska ilaaliyaa annaga hataa hogaamin ahaan marka meesha la tago maamulka gobolka kuwa degmooyinka marka shirarka loo yeero mustawaqa shacabaa lasoo qaataa ama driving qofka macnaha hogaamin gobola ayaa wuxuu soo qaadanayaa mustawaqa shacaba ka kale lama soo bixi karo wadada lama soo mari karo marka taasi aan uga gudubno bal buundadan gaaluun iyo wadooyinkan bal sidii xoogga loo saari lahaa sanadkan hadduu ee beraalli ka noqdo bulshaduna tabasho taagan ee xilli walba macnaha su'aal maadaama ay tahay taa in xoogga la saaro ayaan soo jeedin lahaa ta kale arrinta xadadka oromiya waan soo koobayaa arrinta xadadka oromiya kolley wada shaqayn fiican baa hadda jirta isbeddelka kadib bulshaduna isdhexgal iyo wada shaqayn baa jirta laakiin qaab kale marka loo aan u eegno kolley xadka degmooyin badan bay macnaha dhinaca walaalaheen oromiya ay ka sameeyeen ismaamullo badan bay ka sameeyeen taana bal ka xukuumad ahaan annagana maxaa inoo qorshaysan ilaan bulshada lagu kasbanayaa degmooyinkan faraha badan ee xadadka laga sameynayo iyadoo gobolka daawo keliya aan ahayn liibaan afdheer meelo badan oo ka mid ah marka taana ka xukuumad ahaan bal maxaa inoo qorshaysan ayaan soo jeedin lahaa qodobka ugu dambeeya aan kaga baxayo arrinta gobolka city waa sida loo soo dhigay weeyaan dhibaatooyin badan baa ka taagan taa bal qaabkii maaragtay arrintaasi hoos loo eegi lahaa oo wax looga qaban lahaa hadday barakacayaasha noqoto hadday amniga guudba noqoto kolley dadaallo badan waa la sameeyey laakiin taana in maaragtay xoogga la saaro ayaan soo jeedin lahaa si xubnihii iga horreeyeyba ay soo dhigeen qodobka ugu dambeeya arrinta barakacayaal fara badan oo oromiya kasoo barakacay baa gobolka daawa ku sugan degmada huudad mooyaale mubaarak barakacayaashaasina xaalad adag bay ku jiraan xaqiiqdii barakacayaashina in hoos loo eego sidii maaragtay dib u dejin hadday noqoto ama dhinaca caawimaadda kolley waxyaaba badan oo laga qabtay hore way jirtay laakiin caqabado badan oo dhibaatooyin badan ee haysta daruufo maadaama ay ku sugan yihiin taana marka ka xukuumad ahaan in xoogga la saaro sida barakacayaashaasi gaar ahaan kuwa mooyaale aageedii iyo huudad ku sugan sidii wax looga qaban lahaa iyadana waan soo jeedin lahaa aad baad u mahadsantihiin that is Amina.
Datis amina no koneis ku samba no koneis ku aba no koneis Allah yo ayaga